sida aad u daawan doontaanba gabadha walaasheen xaaladda guurka cilada ka haysatay ayay nooga warrami doontaa insha Allah taala iyo wax sababay xagga guurka ama ragga hadii loo hasaawiisa dhibaato weyn ku qabay wiil kasto ama qof kasto rag oo aan xiriir sameeyno bila sabab asagoo baxay u arkaya way jirtay hadda ka hor xataa aniga meel aan furtay oo ka shaqeynayo lacag hal bil ka shaqeynayo $980 inaan indhahayga saar ninka saaxirka qaatay muuqaalkani waa muuqaalkii afraad oo aan kaga warramayno quraanka in uu daweeyahay maanta insha Allah taala waxaan idin la wadaagayaa sida aad u daawan doontaanba gabadha walaasheen xaaladda guurka cilada ka haysatay ayay nooga warrami doontaa insha Allah taala iyo wax sababay walaasheen guurkeeda markay guusi istiraahdo oo xiriir ay yeeshaan ninkaba oo ay wada sheeko dhaxmarto iska hormaatin ay imaanayo waliba khaasatan xagga ninka raga ayaa waxa imaanaysa wiilkii meel uu ka baxay la weynay taana waxay imaanaysaa kadib arintii markii gabadha walaasheen inoo sheegtay waxaan aqriyay ruqyatu tawaabic ama qofka waxyaabaha raaca ee shaytaanka khaarijiga asagoo khaariji ahna uu jiro banaanka ka joogo gudaha inuu ku jiro waa dhacaysa inuu banaanka la joogo waa dhacaysa kaasa wuxuu sababaa in qofka guurka iyo horumarka iyo wax walba ka hor istaago waxaan sabab u ah shaytaanka qofkaasi banaanka kala socda khaarijiga kaasaana sabab u ah hadaba yaana idinku badin sheekada walaasheen si fiican u dhageysta oo si fiican u daawo waxaan ahay gabar walaalaha muslimiinta kamid ah oo xarunta Shaaci Duruus lagu qoran saaro lagu cilaajiyay alxamdulillah maanta iimaanay iyo maanta laba kala ahay maanta iimaanay waxa kamid ah in aniga dhan aan si aan aqoonin xaaladda sida taan qiyaasi karinin xanuun haday noqoto qofulnaansho aniga dhan qof qofulan ay amal farxad iyo nashaad aan haysanin alxamdulillah laakiin markuu ila dadaalay Shaaci Duruus waxaan dareemay nafis aad u weyn waa caafimaaday inta tabarteeda ah wana ila dadaalay daawooyin meeshaan laga siiyay daawooyin tadbiir ay kamid tahay oo aad iyo aad aan uga dareemay wax isbedel aad u weyn aan ka dareemay iyo daawooyin kala guriga lagu isticmaalayo kulli alxamdulillah aad baan u dareemay inta xataa quraanka ii socday dhowr riyo oo qaab daran oo arkay anigoo ceel aan ka soo baxaayo hadba liigu celinayo 3 habeen aan ku riyooday mar maskaxdeeda oo wax inta dabool ka fuqmay inuu quraayo ka soo yaacday quraayadii inta hurdada aan ku jira hadana xasbunallah inta dhaay daboolantay maskaxdii daboolantay hadana meeshii daboolka ku noqday waxyaabo aad iyo aad u weyn aan arkay daawooyinkaas waa daawooyin macnaha aan ka dareemay isbedel waxa kale oo jirtay intaan xarunta quraanka la ii waday intaan imaanin horte xagga guurka ama ragga hadii loo hasaawiisa dhibaato weyn ku qabay wiil kasto ama qof kasto rag oo aan xiriir sameeyno bila sabab asagoo baxay u arkaya wuxuu baxay ma aqaano ma asigi muxmeen aniga muxmeenin aniga la yaaban alxamdulillah quraanka markaan bilaabay kadib wiilka ugu dambeeyay aan wada soconay ayaa waxa dhacday inuu habeen ii imaado habeenkaas asay laftirkiisa dhibkaas ugu haystay oo uu tagi jiray laakiin uu soo noqon jiray markii dambe inuu Ilaahay ka hadashiyo ila walaal macaani albaabkaaga soo xiro caaw ma ku imaanayo marka albaabka furay maxaa dhacay caaw xayawaan oo egtaa waa bini aadan ma ilay kadbo habeen kastana waxa soo kalaan ku arkaa markaan ku dhaw inaan ku imaado waa la ii ka bedelaa inaa bahal tahay camal ila noqonay dhibaatadaas dhan ay haysatay laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin hadeertan si fiican ayaan ugu dareemay isbedel ayadana dhankaas xarunta Shaaci Duruus waa meel aniga aan isbedel weyn ku dareemay insha Allah waxaan rajeynayaa inaan sii wado ilaa aan ka gaarayo guusheeda oo cadawgaas aan Ilaahay ila baabi'inayo awood Allah iska leh laakiin dadaalka iyo juhdiga iyo talooyinka oo Shaaci Duruus siiyay oo ku meel maray Ilaahayna waa ii meel mariyay inta badan waa ku guuleystay waxaan dareemi jiray shaqadoo kale taan waa shaqaysan jiray umulisa ahay dhanka midwayfriga bartay barashadiina waxba kama dheefin oo isbitaal daan tago 2 bilood hadaan shaqeeyo bil saddexaad ma ku dari karinin way jirtay hadda ka hor xataa aniga meel aan furtay oo ka shaqeynayo lacag hal bil ka shaqeynayo $980
inaan indhahayga saarin ninka saaxirkaa qaatay inay akoonkayga ku socotaa u malaynaya laakiin akoonkiisa ku socotay waxaasoo dhan way soo mareen xanuunno way jireen lugaha ha noqoto qalbiga ha noqoto xanuunno aad u badan ay ahaayeen wallaahi dhibaatadaas kuley sida ay sheeganayaan waa qof aqaano aan la shaqay jiro laakiin ilaah ku camale oo macnaha waa rabaa oo rabitaanu sheeganaya macnaha qoftan waa rabaa ma diiday waxaas ka bilaabay kadibna inuu macnaha xagga guurka igala diriro oo bilaabay waxaan filayaa inaad si fiican uga boogatay muuqaalkaasi allah ku barakeeyo waxaan ka codsanaa insha Allah tacaala inaad gaarsiisid muuqaalkan meel dheer aad gaarsiisaan sifa ay dad yu fara badan oo guurka ka xaniban mashaakilna haysto ay u arkaan una ogaadaan in shaytaanka uu sabab u noqon karo inay qofkaasi lamaanihii ama labadii ruux ay xiriir ka wada dhaxaysay ay mar walba kala cararaan hadaba si gudbi dadkeena kale la wadaag allah ku barakeeyo aad baan u mahadsantahay assalamu alaykum